Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waan idin salaamay walaalahayga Soomaaliyeed meel walba aad dunida ka joogtaan. Alle subxaanahu watacaala ha idin amaansado. Cuduradan iyo dhibaatooyinkan dunida laga sheego Alle subxaanahu watacaala ha idinka amaansado. Fitanka iyo markaasi dhibaatooyinka ee dunidan ka jira Alle subxaanahu watacaala ha idinka haayo. Waxaan ku guda jirnay aqrinta buuggii loogu magac daray 4000 Essential English Words. Waxaan ku sii jirnay markaasi buuggii labaad ayaan ku guda jirnay, cutubkiisa 7 ayaan ku guda jirnay. Waan la socdaa, waana arkay fariimaha aad ii soo dirtaan markaasi wanaag iyo qiimaha badan aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa. sidoo kale waxaan idinkaga mahadcelinayaa markaasi inaad ku soo biirtaan markaasi page-kaygan aad ku soo biirtaan. waxaan Alle subxaanahu watacaala ka rajaynayaa inaan noqono kuwa kala faa'iideysta markaasi oo markaasi wanaag nagu kala faa'iideysta. anigana ima yara dadaal markaasi waxaan ku jiraa saan kor ugu qaadi lahaa markaasi kanaalkan aan u horumarin lahaa barnaamijyo badan oo iga dhiman inaan ku soo daro ayaan jeclaan lahaa. waxaase ii socda markaasi koorsooyin yar aan markaasi shabakada internetka aan ka qaato oo video editingka ay ka mid tahay oo aan rabo inaan kanaalkani aan ku horumariyaa. Alle subxaanahu watacaala ii fududeeyo. waxaanse jeclahay markaasi inaan ka dhigno channelkani mid markaasi sare u qaado, meel wanaagsanna ka istaaga markaasi waxbarashada ummadeena Soomaaliyeed. waxaas idinka codsan lahaa qof walba walaal ah ee Soomaaliyeed waxa uu yaqaan in walaalkiisa kale ee Soomaaliyeed uu wax ka bara. waxa taqaan mar waliba lama yareysto, markaasi qof buu anfici doonaa. walaalkaaga u gudbi, farsamo haday tahay, cilmi haday tahay, aqoon haday tahay, wax allaal waxay tahay abdaa qof aad ku dhaantaa. waxaa wanaagsan inaad walaalkaaga markaasi aad waxaasi aad ku tabarucdaa. Allah subxaanahu watacaala booskii aad ka bixisay cilmigaasi cilmi kale ayuu kugu bedelayaa. marka waxaan jeclaystay aniga markaasi buuggan iyo markaasi laba maado kale inaan ku soo daro, si lamid ah luqadda Englishka inaan xoog aan saarno. labada maado kale aan jeclahay inaan ku soo daro waxa waaye waa biology-ga iyo chemistry-ga alaab aan ka bartaa jaamacadda Hiiraan gobolka Hiiraan ee magaalada Beledweyne. waxaase jeclahay Alle subxaanahu watacaala oo aan ka baryayaa inuu noo fududeeyo say niyadeyna jeceshahayna Alle subxaanahu watacaala ha inoo rumeeyo. waxaan jeclahay inaan idin faa'iideeyo walaalahayga Soomaaliyeed. waxaan ka bilaabaynaa maanta cutubka 7 page-ka 44 ee buugga labaad ee 4000 Essential English Words. walaalaha Soomaaliyeed ee aan buuggan haysan waxaan u sheegayaa buuggan haddii ila soo xiriiraan inaan si bilaash aan ku sii doono, kadibna ay soo daawac doonaanba. hadday u baahdaan xitaa mobilkooda ay kala socon karaan. waan la socdaa wax aan akhrinayo inay yihiin markaasi maqal ahaan ay idiin soo gaarayso, balse waxaan u bedeli doonaa mustaqbalkan dhow inaan maqal iyo muuqaalba aan kasoo dhigo Alle subxaanahu watacaala hadduu raali ka noqdaa. marka walaalaha Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa inay buuggaani igala soo xiriiraan oo si bilaash aan u sii doono. haddaysan haysanin lambarkana hoos ayaa idinkugu qori doonaa oo shaashada idinkugu soo qori doonaa iyo ciwaankayga kaas igala soo xiriir. Alle subxaanahu watacaala hadduu raali ka noqdaa. cutubka 7 ee page-ka 44 ereyga ugu hore waxa waaye waa basis. macna ahaan waa sal u ah waaye. inta badanaa waqti gooni aad shay qabata ayaa basis loogu magac daraa. qeexitaanku waxaa leeyahay to do something, shay inaad samayso on a time aad ku samaysaa markaasi waqti. basis waxay sal u tahay how often you do it, sida badanaa aad shaygaas aad u samaysaa. tusaalaha waxaa leeyahay my grandfather awowhayga gets his hearing jacket. wuxuu markaasi waxaa maqalkiisa laga hubiyaa ayaa layiri markaasi on a yearly basis. sanadle ayaa loo hubiyaa, sanadlahaas oo u ah markaasi sal u ah markaasi sanadle. ereyga xiga waa biology cilmiga barashada noolaha ayaa biology la yiraahdaa.
qeexitaanku waxaa leeyahay biology is the study waa barashada of living thing waxyaabaha nool. tusaalaha waxaa leeyahay we learned waxaan baranay about the human heart in a biology class. waxaan baranay markaasi wadnaha ama qalbiga bini'aadamka ayaan baranay, waxaase ku baranay fasalka biology-ga. ereyga xiga waa cage waa qafis ama xero lagu xiro xayawaanada sida qoolleyda iyo shimbiraha iyo waxyaabaha lamid ah ayaa qafis la yidhaahdaa. erey bixin kalena waxaa la yidhaahdaa waabna waa la yidhaahdaa, waabka qoolleyda ama waabka doorada, sidaasna waa la yidhaahdaa. maxaa leeyahay marka qeexitaanka cage qafiska is something waa shay that kaasoo holds ku celiya an animal xayawaanka celiya mise haaya so it cannot live soosan uga bixin. tusaale waxaa leeyahay weybot waxaanu dhignay the parrot shimbirta parrot la yidhaahda ee hadashaa ama biiqbaaqda la yidhaahda waxaanu gelinay in their cage qafiskeeda ayaan gelinay mise waabkeeda ayaan gelinay at night habeenkii ayaan gelinaa. ereyga xiga waxaa waaye ecology ereyga xiga waxaa ecology waa shaqaale ama dad asla shaqaysan shaqo idinka dhexaysa ecology la yidhaahdaa. ecology waxaa leeyahay qeexitaanka is somebody waa qof you work with aad la shaqaysaa. tusaalaha waxaa leeyahay my ecology shaqaalaha aan isla shaqaynaa helped me waxay iga caawiyeen finish inaan dhameeyo the job shaqada inaan dhameeyo. colony waa gumeyste ama gumeysi. colony waxaa laleeyahay is a country waa wadan controlled by xukumay another country wadan kale. tusaale waxaa leeyahay marka the United States of America laga soo gaabiyey wuxuu ahaa at one time waqti wuxuu ahaa colony mid gumeysta of Great Britain ayuu soo gumeystay ee leeyahay. debate waa dood ee leeyahay. to debate in la dooda is to seriously discuss waa dood dhab ah markaasi something with someone laga doodayo shay lana la doodayo qof lala doodayo. waxaa la yidhi markaa doodu waxa waaye markaasi waa wada hadal dhab ah misna laga wada hadlayo shay misna lala hadlayo qof. tusaale waxaa leeyahay the husband and his wife ninkii iyo naagtiisaba debated over waxay ka doodeen watch in la daawado tv-giga to buy in la iibiya. ereyga xiga debate waxa waaye markaas waa dhoofid. qeexitaanka waxaa leeyahay to debate dhoofidu is to leave waa inaad ka tagtaa some place goob inaad ka tagtaa so you can go saad u aado another place goob kale. qeexitaanka waxaa leeyahay markaasi the plane tusaalaha waxaa leeyahay the plane diyuuradii departed waxay markaasi u dhooftay for Italy wadanka cadliga talyaaniga ayay u dhooftay at markay ahayd 3:00 this afternoon 9 galabnimo markii 3 galabnimo xilli ay ku beegneed ayaa waxaa la yiri diyaaraddu waxay u dhooftay Talyaani. wadanka Talyaani saan wada ognahay walaalahayga Soomaaliyeed waxaa aad iyo aad hadda farbaadan uga hay cudurkan loogu magac daray COVID yani waa erey la soo gaabiyey. waxaa laga soo gaabiyey corona, v-dan waxaa laga soo gaabiyey virus, d-dan waxay ka soo gaabiyeen disease, 19 waxaa waaye 2019 yani sanadka uu soo baxay loogu magac daray. Allah subxaanahu wa tacaala waxaan ugu baryeynaa inta muslimiin iyo Soomaali ku nool halkaas inuu ka badbaadiyo cudurkaas. waayahay ereyga xiga waxa waaye waa debrace waa niyajabin. qeexitaanka waxaa leeyahay to debrace someone inaad qof niyajibisaa is to make them sad waa inaad qofkaasi murug gelisaa. tusaale waxaa leeyahay the bad news
akhbaarta xun from ka imaanaysa work shaqada depressed waxay markaasi niyajibisay dhammaan ninkii. Factual xaqiiq ah waa factual waa xaqiiq ah. When something markii shay is a factual uu yahay xaqiiq, it shaygaas is true waa mid sax oo xaqiiqda ku salaysan. John ninka liiraana learns about wuxuu bartaa history, wuxuu bartaa markaasi taariikhda ayuu bartaa from factual books, buugaag xaqiiq ayuu ka bartaa. Fascinate ereygan waa fascinate waxa waaye macnihiisa soo jiidasho leh. To fascinate someone inaad soo jiidataa qofi is to make them waa inaad ka dhigtaa qofkaasi really like something inuu shaygaasi jeclaada. tusaalaha waxaa leedahay kitten bisadu was fascinated waxaa soo jiitay oo cajabgeliyey by the ball banooniga of yarn donta banooniga ayaa markaasi cajabgeliyey. beejka 45aad ee cutubkeena 7 ayaan usii gudbaynaa walaal. ereyga ugu horeeya ee 20 arimaanta nala sii waxaa waaye waa mission ergo. mission waa ergo. ergadaasi oo ah inta badanaa dad shaqo gaar ah looguna diro markaasi meel ka baxsan meesha ay joogaan ayaa mission la yiraahdaa. mission waxaa leeyahay markaasi qeexitaanka is an important job waa shaqo muhiim ah taasoo sometimes mararka qaar far away ee fog. tusaale waxaa leeyahay markaasi the women's mission ergadii gabadha wuxuu ahaa to help inay caawiso sick people dadka xanuunsan. ereyga xiga waxa waa nevertheless si kastaba ha ahaatee ayaan ku macnaynaynaa ereygaas. si kastaba ha ahaatee use waad u isticmaalaysaa nevertheless si kastaba ha ahaatee ereygaas ayaad u isticmaalaysaa to show inaad muujiso that imkaas something shay goes inuu u socdo against effect si xaqiiq ah inuu u socdo shay. tusaalaha waxaa leeyahay markaas is usually friendly. he is usually badanaaba wuxuu yahay friendly mid saaxiib ah ayuu yahay. nevertheless si kastaba ha ahaatee he was not muusan joogin this afternoon galabtaani. occupation waa xirfad oo qofkan uu ka shaqeeya ayaa waxaa la yiraahdaa occupation. an occupation xirfadda is a personal job waa qofkan shaqadiisa waa. qof walba saan ogsoonna xirfadiisa ayuu ku shaqaystaa marka waxaa loogu magac daray occupation. tusaalaha my father's occupation aabay xirfadiisa ama shaqadiisa waxay qaaday markaasi is a dentist dhakhtarka ilkaha waa. dentist waa dhakhtarka ilkaha. ereyga xiga waxaa waaye overseas dhaafsiisan badda. overseas waa dhaafsiisan badda yacni ka fog badda waa email aageeda ahba. qeexitaanku waxaa leeyahay if you go overseas haddii aad aado meel dhaafsiisan badda you go to the country waxaad aaday wadan on other side waxaadna ka aaday qaybta kale of an ocean ee badda. tusaalaha waxaa leeyahay markaas john ninkleeda often badanaa goos wuxuu aadaa overseas meel dhaafsiisan badda for vacations fasaxa markii la gaaraa. ereyga xiga waa barshuweyd ku qancin waaye. barshuweyd waa ku qancin. to persuade someone inaad ku qancisaa qof is to make them waa inaad ka dhigtaa qofkaasi agree mid kugu raaca to do something inaa shaygaas la qabtaa. tusaalaha waxaa leedahay daljil daraa caruurta persuaded waxaa lagu qanciyey their parents waalidiintood ay ku qanciyeen to buy inay iibiyaan waalidkii dam iyagoo ay u iibiyaan caruurtii gifts hadiyada inay u iibiyaan. ereygan xiga waxa waa route waa wado. route wadadu is a way waa wado you go from one place to another aad ku geysa markaas wado intay kaa soo wado kale ku geysa ayaa route la yiraahdaa. I saw many new houses waxaan arkay guryo badan along hareer yaala the route wadooyin to the city ee magaalada.
ereyga xiga waxa waa markaasi ruins waa haraa burbur. ruins waa haraaga burburka alaabo burburkaasi kuwa guryaha oo kale. ruins waxa leeyahay are all the building waxa waa dhismo qadiimi ah that kuwaasoo are not used anymore in badan aan la isticmaalin. I visited waxaan booqday some interesting ruins waxaan booqday markaasi haraa burbur oo xiiso leh in guri Greek ku yaala. scholar waa caalim ama arday. scholar waa caalim ama arday. scholar waxa la isticmaalaa inuu qof uu studies bartay something wax ayuu bartay annaas wuxuuna garanaa much about shaygaas uu bartay si fiican u yaqaan. tusaale waxa la markaas the scholar caalimkii mis ardaygiinii wuxuu ogyahay much about art history cilmigaas art history liiraada ayuu markaas in badan ka ogyahay. significant ereygan liira significant macnihiisu waxa weeye ahamiyad weyn leh when someone markii qof or something shay significant uu yahay mid ahamiyadiisu ay weyn tahay they are important waa muhiim. tusaale waxa la awreed waxaan aqriyay many significant novels buugaag badan oo ahamiyad weyn leh ayaan aqriyay as literature major in university taasoo markaas inta badana suugaanta waaweyn ee jaamacadaha looga bixiya. ereyga xiga waxa waay volcano is a mountain waa buur which does a hill leh markaas duleel on a top qaybta sare ka leh where halkaasoo hot liquid comes out ay ka soo baxaan dareere markaasi kulul. qixitaanku tusaale waxa leeyahay when the volcano erupted markuu falkaaniga qarxay smoke qiiq and heat iyo kuleel ayaa filled the air hawada ka buuxsamay. waxaan isu gudbaynaa page-ka 46 iyo page-ka 47 waa su'aalo walaalahayga Soomaaliyeed idinka la rabaa su'aalahaas inaad ku baashashaan waayo 20 erey aan soo baranay ayay qayb ka yihiin ayaa markaasi lagu ogaanayaa heerka aan fahamka markaasi uu naga joogo. waxaan u gudbaynaa page-ka 48 waxaa noogu qoran sheekadaas oo lagu soo dhaxlifaaqay 20 erey. sheekada magaca loogu magac daran waxa la yiraahdaa a beautiful bird shimbirkii qurxoona. beautiful bird shimbirkii qurxoona. ninka la leeyahay markaasi Dr. Norton nis occupation xirfadda Dr. Norton wuxuu ahaa scholar mid cilmi u leh of biology cilmiga biology-ga. he learned about all animals wuxuu bartay dhammaan xayawaanada on a daily basis si caadiyan ayuu u bartay si maalinle ah ayuu u bartay. one day maalin himid wuxuu la kulmay sailor badmax ayuu la kulmay from ka imaaday a colony offices meel ka baxsan oo ka durugsan badda ayuu ka yimid. dhammaan ninkii ayaa told wuxuu u sheegay Dr. Norton ninka la leeyahay about wuxuu u sheegay a talking a bit shimbir hadlays ayuu u sheegay. waxaa jirta ayuu yiri shimbir hadasho ayaa jirta ayuu yiri. the bird shimbirtana fascinated waxa waa markaasi mid soo jiidasho leh waay ayuu yiri Dr. Norton. so he told wuxuu u sheegay his colleagues dadka isla shaqeeyaan about it ayuu uga sheekay. Dr. Norton ayaa waxa uu sheegay dadka isla sii shaqeeyaan markii ninkan loo sheegay. they debated with him waa ay la doodeen. no one cidna markaas thought maysan ku fikirin a bird in markaas shimbir ku talk ay hadli kartaa. he tried wuxuu isku dayay to persuade them inuu ku qanciyo arrinkaas ay jirta shimbir hadli kartaa but laakiin they laughed at him way ku qosleen. nevertheless si kastaba ha ahaatee markaasi Dr. Norton ninka la yiraahdo believed wuxuu rumaystay the bird shimbirto was real inay tahay mid xaqiiqa. his new mission ergadiisa cusubna waxay to found it inuu soo hela markaasi shimbirtaasi. he wanted wuxuu rabay to factual proof in uu la yimaado xaqiiq dhab ah inuu la yimaado
the next day maalintii xigta he departed wuxuu markaas u safray for the colony halkii ayuu u safray. The sailor badmaaxihii he had told it to him markaasi badmaaxihii la kulmay ayaa waxaa u sheegay inuu raadiyo nin la yiraahdo Jai. The sailor badmaaxihii he had mid uu la kulmay told ayaa wuxuu u sheegay him isiga to look for inuu raadiyo a man nin name lagu magacaabo Jai who kaasoo would be able kaasoo awood u leh to help him inuu markaasi ka caawiyo in his search baxthigan uu sameeyay misraadintan uu sameeyay oo shimbirtan uu raadina. After a month bil kadib of sailing ay badmaax badda ay galeen. Sailing waxa waa badda markii lagu safraayo waxa la yiraahdaa sailing marka. Dr. Northern finally ugu dambeyntii Dr. Northern Richard wuxuu gaaray the colony halkay u socdeen ayuu gaarway halkaas yimid oo la kulmay Jai Nicklear. I can't take you aniga kuma markaasi geyn karo to where halka it lives ay ku nooshahay shimbirta. It lives waxay ku noontaa by the volcano meel volcano uu ka jiro ay ku nooshahay liiri yacni buur markay qaracdo ay samayso rupture ayaa volcano liira. Jail said ninkii uu raadinay jail ayaa sidaas u yiri. They left the next day month xigta waa ay bixin. They left the next day month xigta waa ay bixin. A week later isbuuc kadib they arrived waxay imaadeen at the volcanadii ay yimaadeen. Every day maalmoodba they walked around and looked for the bed. way socon jireen dhinacyada ayayna fiiri jireen waxay raadi jireen shimbirti but like they couldn't found it way heli waayeen. After 1 month bil kadib Dr. Northern Nicklear could not found the bed. shimbirti markuu heli waayay bil kadib and his depressed him tani waxay ku noqotay marka and this tani waxay ku noqotay depressed him inuu niijabo. He decided wuxuu go'aansaday to go home inuu gurigiisa aado on the route back wadadii uu ku soo noqonay markaasi he walked past some old ruins wuxuu arkay markaasi guryo qadiimi ah ayuu arkay. He heard wuxuu maqlay one qof say hello qof dhaay ayuu maqlay. Who are you yaata he asked ayuu weydii. Dr. Northern looked up kor ayuu fiiri and so wuxuu arkay bed shimbir. Dr. Northern Nicklear put the talking bed into the cage. Dr. Northern wuxuu geliyay the talking bed shimbirtiis haleysay wuxuu soo geliyay into the cage qafal ayuu soo geliyay ama waab meel qolay la geliyay ayaa la yiraahdaa cage qafalka. Dantaas kadib he returned wuxuu ku soo noqday home guriga. He had made wuxuuna sameeyay a significant discovery helitaan cad oo daliin leh ayuu sameeyay. waayahay walaalahayga Soomaaliyeed qiimaha iyo karaamada leh beejkaas ayaa noogu ekaa maanta cashirkiini aan ugu talagalnay. Allah subhanahu wa ta'ala ha idin amaansado daradan iyo dibkan jiran Allah subhanahu wa ta'ala ha inaga dulqaado halkaas ayaan soo gabagabeynaa. Salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.